sidee ku dhacday muddo 3 sano ah in la tabi waayo Joy Vicented ama la helo 3 sano kadib meedkeeda? السلام عليكم أصحاب تقاليق سوري مالك استاجوكتين ولا شيء ناوية فلن سبسكرايب إيسار لايك تو مهم شير إسمه مدة كلات اسكهو بينا سارته هدو جدود يا دعسي ولي واي isla socod wanaagsan maanta waxaan wada qisa kaleete Joy Vicented waxay la dhalatay 9 caruur ah 4 gabdhood iyo 5 wiil aabood wuxuu ahaa Afrikaan hooyadeedna waxay ahayd Hindi hooyadeed waxay dhimatay operation cunug ayay ku dhimatay iyada korashameedan waxa ka soo dambeeyay 3 gabdhood oo walaalaheeda gabadha afraadna waa ayada saas ayay ku soo kartay ama familkaas ayay ku soo kartay quruxda badan kadibna waxa dhacday inuu ay weynaadaan Soomahan kadib aabahood wuxuu ahaa aabayaasha ilmaha garaaco gabadhana waxay ahayd dadka kalinimada jecel saas darteed markay weynaatay waxay go'aansatay kaligeed inay noolaato sidii ay ugu soo guurtay familka saas uga soo dhaxbaxday marka koowaad ha ka soo guurtay maxumo laakiin shaqo yar ayay heshay iskuulka dhexe uga tagtay shaqadii bilowday si step by step markii dambe shaqo fiican ay heshay kadib iyada iska kansashay shaqadii meeshaas ayay ka soo bilaabatay dhibaatadeeda iyo inay dadka connection kooda ay yareyso asxaabtii way jartay familkeeda marra ugu dambeeyay shaqadii way iska soo kansashay waxa ku soo aruurtay inay soo degto meelaha dumarka oo la abuse gareey nimankooda iyo waxaas ay soo dhibaateeyaan oo dawladda inay ku biirto meeshaas ayay in muddo ay ku nooleed kadibna Vicented maxaa ku dhacay 2001 Vicented waxay soo kansashay shaqadeedii fiicneed kadibna waxay ka shaqeyn jirtay shaqooyin yar yar markaas aan u dhigmin ayada shaqada hore ay haysatay oo kale tama ahayn macna waxyaabo ka yar yar okay asxaab way jirtay family way jirtay xitaa area dadka la degan qolkaas ma ahane nolol kala meesan lahayn qolkeedii kaliya ay kalinimadeeda ku goosatay kadib way xanuunsatay waxay gashay isbitaalka markii waxa laga soo sheegay nabar inuu kaga yaalo caloosha muddo loo bariyo ku jirtay waan laga soo bixiyay gabadhii dib dambe waa loo waayay waxaan lagu ogaan doonaa inay dhimatay gabadhan muddo 3 sano ah kadib feelashii oo kirada iyo waxyaabahaas dhan ma ka soo jawaabayso wax dhan malahan hal mar ay mood gashay waxay xiriir lahayn waxay ahayn kiradas iyo waxaas iska bixinaysa iyo wax ay iibsanaysa bis kuwaas kaliya tabi kareen 3 sano kadib dadkii kirada iyo wax raadsanay ayaa guriga tagay markii la arkay kursiga ay ku fadhisay iyadoo qalfoof ku noqotay ayaa meeshii loogu imaaday kadib qolka markii la soo jabiyay meeshas waxa laga helay filkeedii oo inay jirneed oo nabar caloosh kaga yiilay cadeynay inay asma qabto macnaha neef ma laha qabto mideeda kale waxa la arkay journal markaas ay soo xareysatay oo ahaa 2003 December marka agteedan waxa yaalay hadiyado ay xirtay ilaa dhowr hadiyadood ah iyo geedkii New Yearka marka dadkan wax sameysanayaan calaamado waxyaabo guriga ay soo dhigtaan soo ajirso maahan dadkan islaamka ahayn marka waxaas dhan ayaa qolka loogu imaaday kadibna waxa la arkay in taariikhdaas gabadhan ay dhimatay 2003 December dhaxdeeda meelahaas goormeena la arkay meedkeeda waa 2006 meesha waxa ku jirtaa 3 sano taana la sameeyay in la ogaado sabaha gabadhan ee u dhimatay ama ka dambeeyay dariska ayaa la weydiiyay markii oo la weydiiyay xaaladaha ugu dambeeyay gabadha markii arkayeen ama ugu war dambeysay waxa la sheegay in gabadhan dadna ay la xiriir jireen qolkeeda markasta oo xirnaa qafna inuu omaan jirin saasaana sababtay inaan la tabin ba sideeda banaan okay qaf 3 sano meed ahaa hadana qol ku jiray oo meeshas areadaasna la degan yahay magaaladana ee London tahay oo meel duur aysan ahayn see ku dhacday in la ogaan waayo ama urteeda xitee la arki waayo dadka dariska waxay ku jawaabeen anaga urka marka arkayna waxa u maleynayna qashinka ku agdhow sabab gabadha qolka degneed qashina dhinaciisa ereadiisa la dhigi jiray qashinkaas la u maleyn jirnay urta inuu ka soo baxayo xitaa hal mar isku madayin in ay raadiyaan markasta wax isdheey jireen qashinkaas waayo sida ayaan gabadha lagu waayay sababtoo wax saaxiib iyada ma lahayn familkeeda maray jirtay dariskeedana xiriir dheer ma kala dhaxayninba laakiin waxa la yaabay hadiyadaha meesha yiilay u diyaarisay ayada dadkii u diyaarisay arxan darana xitaa hal mar soo ma xasuusan qof dhan oo hadiyado u diyaariyay baaritaan lagu sameeyay xaafada macnaha dadka ila degneed in la su'aalo iyo dadka ka agdhawaan waxay dadka ila degneed sheegay dadka lagu ka agdhawaa bal waay soo maahan
way fasanteed kiiskeeda wax badan waa la isku dayay in xogag badan laga raadiyo laakiin ilaa hadda waa laga leeyahay xog oo saaid ah in asmadaas iyo nabarka caloosha ogay la asan ahayn 3 sano reasonka inay dhimatay ka dambeysay ana loo waayo loona ogaawayo meedkeeda ilaa hadda waa la leeyahay kiiskeedan wuxuu ku jiraa kiisaska dilalka aan wali xalka loo helin ama dhimashada wali aan xalka loo helin say kula tahay gabadhan asma ma u dhimatay mas dilkeeda waa laga dambeeyay sideen ku dhacday qof London joogo oo hadana dhalinyaro ah oo degan daris leh la ogaan waayo muddo 3 sano ah meedkeeda wali mana qol ku jirto meed bani aadan urkiisa iyo xitaa ismalahan quranka adduunka hadii la keeno so kula tahay qsadaan fadlan subscribe noo saar hanaga iloobin kuma sinta daawasho videogan ilaa heerkan isla soo gaarnay qasooyin badan saana kale taan waa bye bye